barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى aniga waxaan ka socdaa laba dhaqan oo kala duwan. qaarkay waa Filibiin, qaar kalena waa Hindi. Hadda aniga saaxiibtay halkan ayay keentay. Aniga waxaan rumaysanahay shay kasta oo ku saabsan Islaamka. Waxa igu jiraan shaki dheeraad ah, laakiin waxaan ka rabaa oo kaliya inaad i kaalmayso. Waxaan ka wadaa dhab ahaantii aniga ma garanayo waxa ay celinayo. Sidaa darteed waxaan doonay inaan ku weydiiyo haddii ay suurtagal ku tahay inaad i caawiso. dabcan walaashay ku soo dhawow su'aashaada. waa maxay shakigu? runtii ma aqaan waxa ay celinayo. haddaba waxaad sheegtay inaad islaamka wax ka akhrisay oo aad islaamkana waafaqsan tahay, laakiin shay ayaa weli ka suulin. waa wax ku wareerinayo oo kale. haa, waxba ii diidayo, laakiin ma aqaan. aniga runtii ma aqaan. walaasha waxayna weydiisay waxaa jira shay ii celinaya, laakiin ma aqaano shaygaas ii celinayo. walaashay haddaadan ogeyn waxa ku celinaya, iska daa shaygaasi ma garanayno, balse hadda iska hilmaam shaygaasi, tallaabna hore u soo qaad. xagaag. walaashay ma rumaysan tahay inuu jiro hal ilaah oo kaliya? haa, waa rumaysanahay. ma rumaysan tahay in cibaadada sanamyada ay xaaraan tahay? haa, waan aaminsanahay. ma waxaad rumaysan tahay inuu ciise ilaah ahayn? haa, waa rumaysanahay. waxaad rumaysan tahay inuusan ilaah ahayn, waxaan rumaysanahay inuusan ilaah ahayn, laakiin inuu yahay rasuul alleh? haa. ma rumaysan tahay in nabi maxamed uu yahay rasuulka alleh? haa, waa rumaysanahay. walaashay labadaani shay, inuusan allah jirin alla mooye nabi maxamedna rasuulka alle yahay, waa laba shay oo ku filan inaad ku gasho iskuulka. marka qofku uu doonayo inuu galo madraso uma baahna inuu ahaado qof qalin jabiyey. wuu og yahay asaasiyaadka, kadib madrasada ayuu gelayaa, kadib ayuu horumar samaynayaa. haddaba dalabkaygu wuxuu ahaanayaa sidan soo socota. haddii aad rumaysan tahay in ilaah jirin alla mooye, oo aad rumaysan tahay in cibaadada sanamyaduna xaaraan tahay, rumaysan tahana nabi maxamed inuu rasuulka alle yahay, horay u soco. insha allah ilaahay wuu ku hanuunin doonaa. insha allah waxaad noqon doontaa gabar aad u diin badan. xagaag. haddaba walaasha islaamka ma aqbalaysaa? waxaan aaminsanahay inay waajib tahay inaan aqbalo. maxaa diidaya? qof miyaa ku qasbaya? maya, ma jiro qof i qasbayo. arrintaasi ma xorriyadaada ayaad ku samaynaysaa? haa, xorriyadayda ayaan ku sameynaa. insha allah carabi ayaan ku dhihi doonaa, adiguna gadaashayda ku celi. xagaag. ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. maasha allah, muslimad ayaad noqotay. waxaan ilaahay kaaga baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu waddada toosan kugu hanuuniyo, waxyaabaha ku celinayana uu kaa badbaadiyo. haddii aad qabto su'aal, waan ku soo dhowaynaynaa. keliya ku soo dir emailka zakir@irf.net. isla markaaba insha allah waxaan isku dayayaa inaan sida ugu degdega badan kugu soo jawaab celiyo. mahadsanid. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع
وارعي حقه